السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وناكسن صاحب بيال وحن رجينا في عنتهين ساكنا هدو إلهي لادو وحينو قاضا ديقي دونا حينو قيحي دونا أما إنو فصيري دونا مهما هي دا الصومالي دا لبا كمي دا اسكو شاينا كهالله هيا فرنتين آد حكمة بدن تكواد وحي كولا دا هاي cadawaaga hortiisa hub lahaw cadawaaga hortii hub lahaw talabaadna waxay ku leedahay khayr waxba kuma yeelee shar u tooghay soo koob inta cadawaagu ku iman diyaar garowey soo koob khayr waxba ku yeeli maayo waad u baahan tahay shar u diyaar garow oo maxaa shar noqon kara dadka oo dhan ha u malaynayay wada naasax ku yihiin inay shar ku yihiin ha u arkin dhammaantood laakiin mar walba qof soo jeeda ah way ayna fasir marka waxa lagu yiri cadawaaga hortii hub lahaw san hub lahaani mar walba diyaar gareysnaw qof isla jooga ahaw waxay su'aalakum amaadaha kale biyeentayna ku soo gaarin baa la iska moosaa marka mar walba qof isla joogo xogtiisa iyo xaqiiqdiisa iyo xantiisaba og noqo ilaa waxa la yiraahdaa fulay xantiisa ma mooge ilaa waxa lagu xamana waa taqaana waxa lagu amaanana waa taqaanaa cadawgaaga hortiisa hub lahaw su'aal marka ma taala yaa cadaw u taqaana hadaba saddex cadaw baad leedahay waqtigu waa cadow saaxiibkaana waa cadow cadowga caadigaana waa cadow waqtigu sidee cadow u yahay dee wuu ku gurayaa adoo iska socdo oo isle wax baa ku hadhay qalbab baad dhimanaysaa dadana waxaa laga yaabaa naar inaad gasho mise cadow kugu noqonin kol hadduu waqtigu cadow kugu yahay oo ku gurayo oosan daqiiqad ku kaadinaynin hal daqiiqad ah biya meelka cabeeya haddaad doonaa dhahad hal daqiiqo kuma kaadinaya waqtigu tii waa cadawaaga ka diyaar garow oo adoo dagan yaan lagu iman oo malkumadku ku imanine adoo weyse qaba soco wardiga adoo akhrinaya soco mar walba wax wanaagsan adoo samaynaya soco goor lagu qaama ka warantay waa kow saaxiibkaaga isna waa cadow sidaa inaan dhaho waxaa ka fiicnaan la inaan dhaho intiisa badan waa cadow sababta maxay tahay horta qof bila aadana rabitaanna wuu leeyahay waxa lagu soo adeegsan karo ama asagoo ku dili karna waa asaga ee xogtaada sida rasmiga u haya kala hadda baxti ku samayso ama aad baadho dhacdooyinka ka dhaca adduunka ee maxkamadaha dib u fiiriso ama taariikhaha akhrido dadka inta badan wax ku dhacaan ama hadinto ama waxa laga qaatee falka waxa ka dambeeya saaxiibkii bay noqdeen inta badan saaxiibada saaxiibka xogtaada boqolkiiba 90 ka qari haddii kale boqolkiiba 98 ka qari laba unsi laakiin dadka tirada maanta waxaan soo helay sidaan noqday heel baan la sheekaysan marka u dambaysa qofka ku dil daan asagu noqda marka saaxiibka ha isu wada dhiibin Soomaalida maama kale waxay dhahdaa qof hadaad jeclaanayso aasha jeclow bilaaba nici doontide qof hadaad necbaanayso necab tahay aasha jeclow bilaaba jeclaan doontide yaani aayar jeclow ma aayar necbow sababtu maxay tahay waxa laga yaabaa qof aad u jeceshahay oo xogtaadii oo dhan gacanta ka saartay bariina isku dhacdaan dokumentigu ka haya qaali amarka sawirro xogo sheekooyin codad buu ka haya bari markaas ku dhacdaan wuxuu samaynayaa doorku gelinayaa qof aynaan saaxiib ahayn ama inaan isjecelayn inta badan xogtaada ma bahelo dadka inta badan dadka haysta ama rakaatada ku qabsada amaba dhibaateeyana waa qofka aad isu dhiibtay jacaylka iyo waxun isu dhiibtay dad qofka nacabtayna ku fogaanin inaad jeclaataan baa laga yaabaa dhawaan qofkood balaayo dhan banaanka soo dhigtay haddaad jeclaataan ka waran waqtigu ku qasbo
ceebta hadii baa banaanka timaan oo de adigaasi isla yaabay yahay inta aan kaga gudubna kaas waxa lagu yiri shar u tooghay khayr wuxuu kuma yeelay khayr wuxuu ku yeeli maayo oo khayr waad qabtaa laakiin shar u tooghay waa intaas waxa weeye dhibaato ku geystay sharku waa dhibaato un Soomaa tusaale ahaan meel baad joogtaa ama wax baad qabataaba dadkoona waxaad ka aaminsan tahay inay wada wanaagsan yihiin mid baa soo dusi kara dhibaato ku sameyn kara gaari baad ka raacdaa maalba taxi baad ka raacdaa waxaad moodaysaa dadkan gaariyaasha wato dhan wada fiican yihiin maalinka dam waxa laga yaabaa afka oo gasho mid subxaaniya balaaye dadka inta kula tago dhibaato kugu sameeyo gaari kasta iska raaci waxa ku dhaanta adoo waqti uu ka dhinto intaad gaari kasta raaci lahayd hotel kasta iska tagi qof kasto meel la suraacna ku yiraahdo raaci ilaali dadku hamoodin waxa weeyeen wada wanaagsan yihiin marka mar walba digtooni qabash qof digtoon oo shar iyo uu ka cabsanaya noqo wad badaysa laakiin dadku dhan martay inay wada fiican yihiin adoo calcalaya ku arki doona bal dib u fiiri adduunka baartaan samee waxa lagu leeyahay qof baa gaari iska raacay goordoona intay gaari raacday yaa lala tagay dayo wajina qof bican baan moodayay ma shaqaysadee waxa kale oo jira qofkaas barataan si walba hadduu ammaan kugu sheegto oo si walba fiicni u sheegto si walba astaani kaaga muuqata ku aamini bilaadiisa sababtu maxay tahay qofkan marka hore wax ku sirayo dhul dhigaya midabuu sameynaya sawirro gelaya waxbuu xaggan ilaa marka dantiisa uu gaadho oo asarkiisa ku soo bixi doono marka waxa lagu yiri khayr wuxuu kuma yeelay shar u tooghay tusaale ahaan qofka soo dhagaariga soo raacay ma raacayo waxaad raadsatay mid adeerka rasmi ah dhalay waliba asayru saad akhlaaq u ogtahay ama aabaha ama walaalka ama abtiga waliba adeerka raacin adeerka la raacin ama walaalka raac aabaha iyo hooyada dhaleen ama aabaha raac ama abtiga raac waxaad gabartahay way maxaan ka hadlay wiil laftiisu qof amaana leh raac wada sheekaysta waa socda gabadh amaana leh la sheekayso waxaan ka digayaa in badan aan ka sheegay gurigiina gabadha guri aan ahayn shukaansi iyo shaka ugu tagin qofna tii hore aan ku noqono waxaa la yidhi cadawaaga hortiisa hub lahow hubkaagu wuxuu noqonayaa kow xishoodka waa hub asturnaanta waa hub waxa xishoodka leeyahay dharka kaliya ma noqdo xishoodka hadalka kamida haddaad labis iyo indhashareed xidhato dam ah haddana afka aad ka hadlaysa ka waran qurun shubayso ko afka inaad xidhato waa xishoodka waxa weeye waa difaac inaad aamusto labiska inaad xijaab xidhato oo indhashareed xidhato oo isqafisho nayadna waxa weeye waa difaac dhul socodkaagu inuu yiraadana waa difaac inaad markaad sheegaysana waxa aad ku hadlaysaay inuu noqdo wax wanaagsan waa difaac laana maxaa yeelay waa la isku soo raaca kalaamka jilicsan iyo kalaamka maaragtay xumaanta ka hadlahay marka waxa lagu yiri cadawaaga hortiis hub lahow hubkaasina waa waxa aad haysato oo ama kalaama ama adin ah adinkaagu hadduu noqdo mid wax iska celin kara oo arnaga tagad ruux badhi karo kalaamkuna uu noqdo mid saas oo kale difaac ah oo badbaadaysa waxa lagu diiday noqdo hay raac wax walba haye xagan gal way haye waxa la rabaa qof walba inaad khayr u toog inaad khayr waxa weeye xukuma yeelo shar u toog hayso cadawga hortiisana hub lahaato marba saaq talagal ka wad badbaadi karaysa deegala mooyidaada awaano